xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si kulul u horjoogsatay natiijadii ka soo baxday shirkii maamul samaynta ee gobolada Jubbooyinka dalka kaasoo in muddo ah ka soconaya magaalada Kismaayo. xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay natiijada soo baxda ku tilmaantay mid ka hor imaanaysa mabaadi'da dawladda federaalka Soomaaliya ee ku wajahan maamul samaynta gobolada dalka. waa kana wariyahayaga Ismaaciil Macalin Mukhtaar Rancho. wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guleed oo maanta saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimihii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolada Jubbooyinka gaar ahaan arinta magaalada Kismaayo oo maalmahan oo dhan la hadalhayay. wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guleed ayaa waxa uu sheegay in shalay halkaasi looga dhawaaqay maamulkaasi oo uu tilmaamay in aanu ku dhisnayn habkii sharciga ahaa ee nidaamka dastuuriga ah ee dalka u yaallo. ayadoo dadaaladaas oo dhan ay jiraan dawladda dadaalada intaas la eg ay wadaan iyo dawladaha igad waxaa runtii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo arrin aan aad iyo aad uga xunnahay. aan isleenahay armay ay ma aragtay walwal iyo cabsi badan oo in ma aragtay meeshaasi dhibaato ka timaado aan ka baqayno ayaa ka dhacay. waxaa ka dhacay meeshaas in maamulo aan isleenahay shuruudaha iyo shuruucdaas iyo mabaadi'daas aan hore u sheegnay kuma salaysna ayaa meelahaas looga dhawaaqay. weliba maamulo ma aragtay isfeer socda ayagoo awalba markii horeba aan isleenahay arrimahaas iyo wixii la rabay aad iyo aad uguma ma aragtay salaysna ayaa haddana waxay noqdeen maamulo isfeer socda ayay noqdeen. sidaa daraaddeed dawladda Soomaaliyeed waxay walwal weyn ka qabtaa in arrintaas ayada ah ay horseedo qas iyo qalaanqal ku yimaada xagga amniga iyo security ku yimaada ayay walweyn ka qabtaa. waxaan isleenahay muddadii 4 bilood oo la soo dhaafay wixii aan ka digayn oo aan ka cabsi qabnay ayaa dhacay baan isleenahay oo ahayd anagu mar walba waxaan lahayn war wixii maamul samayn oo dhici karo jiraya waxaa habboon in loo maro dastuurka, waxaa habboon in loo maro dawladda iyo siyaasaadkeeda, waxaa habboon in loo maro wadatashi guud oo bulshada ka yimaada, waxaa habboon in loo maro dib u heshiisiin iyo dadka maamulka wada dhisanaya oo dhexdooda kalsooni iyo walaalnimo la dhigo. marka isfeer socodkan ayaga ah iyo maamuladan kala duwan lagu kala dhawaaqay waxaan runtii cabsi iyo walwal weyn ka qabnaa in ay keenaan wixii aan ka baqayno oo ahaa in meeshaasi qas iyo xasilooni darri uu ka dhaco. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya ay muddo badan ku howlaneed sidii arrintaasi loo dhameyn lahaa xalkama dambeynna looga gaari lahaa hase yeeshee ilaa hadda aan wax natiijo ah ka soo bixin marka laga tago in la iska dhaga tiray awaamiirtii iyo baaqidii dawladda ee ku aadanaa in halkaasi uu ka soo baxo maamul ay dadka oo dhan ku wada midaysan yihiin isagoo intaa raaciyey in halkaasi hadda ay ku sugan yihiin guddi dawladda Soomaaliya ay u magacawday xalinta arrimaha gobolada Jubbooyinka. wasiirka ayaa sidoo kale baaq u diray siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolada Jubbooyinka isagoo sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka digayso qallaasa halkaasi ka dhaca. waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii xal midaysan looga wada qaadan lahaa arrinta ka taagan Kismaayo. sidaa daraaddeed marka waxaan u soo jeedinaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada Kismaayo in xasiloonida lagu dadaalo, in ma aragtay wax kasta oo nabadda wax u dhibi karo laga digtoonaado, in loo dhaganugulaado baaqyada xukuumadda, in loo dhaganugulaado guddiga wadaxaajoodka iyo dib u heshiisiinta oo ay dawladda dirtay, in loo dhaganugulaado barnaamijka xukuumadda ee maamul samaynta dalka in loo dhaganugulaado. waxaan kaloo runtii rabnaa inaan baaq u soo jeedino ayagana ciidamada dawladda iyo ciidamada AMISOM oo aan runtii aaminsannahay inuu ayaga waajib ay ka saaran tahay sugidda amniga iyo xasiloonida magaalada Kismaayo iyo dhammaan gobolada Jubbooyinka. waxaan ciidamadaas ayagoo wada jira ciidanka dawladda iyo ciidanka AMISOM u soo jeedinaynaa in ay nabadda
iyo xasiloonida xil aad iyo aad u weyn ay iska saaraan aysan marnaba ogolaanin cid alle ciddii fadqalalo ku wada nabadda inay dhexdhexaad ka ahaadaan khilaafaadka iyo mashaakilka ka jira magaaladaas Kismaayo inay dhexdhexaad ka ahaadaan oo aysan ku milmin dhinac ka mid ah dhinacyada aysan ku milmin. hadalka wasiirka ayaa waxa uu imaanayaa maalin kadib markii magaalada Kismaayo looga dhawaaqay maamulo kala duwan oo labaduba ay sheeganayaan inay mas'uul ka yihiin gobolada Jubbooyinka waxaana sidoo kale hadda ku sugan magaalada Kismaayo wafdi ka socda dawladda Soomaaliya kaas oo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya isla markaana ka shaqeynaya sidii xal looga gaari lahaa arrimaha gobolada Jubbooyinka.